heestan aad u jeedana wada aragteen waxa soo qaaday fanaanka dhahda Nimcan Hilaac oo magaalada kamid ah fanaanada Soomaalida kooda loogu jecel yahay waxa uu ugu jawaabayaa fanaanada reer Hargeysa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. soo dhawaad saaxiibayaal maqalka si shargaraya markii koreysan samartada tahay waxaan ka codsanay daawada inaad maqalka media si gaarsiiso aad iyo aad ba saaxiibayaal mahadsantahay ku maastar joogta kaniga madashina. soo dhawaad saaxiibayaal, thank you so much. markii inta laga yimaado waxaan marnaa internet subscribe ama waxaan marnaa 109,000 subscribe. waxaan idin ka codsanayaa inaad halka cas magaalada naga cadaysan oo nagu soo biirtaan saaxiibayaal, thank you so much. waan leeyahay mar si halkan uga jeedaan ama saateeta kaba ka soo aragteen waxaan doonayaa maanta ama ha wixii kasta ku tahayba inaan muuqaal ku sii fogaanin muuqaal kooban inaan magaalada halkan ku soo gudbiyo. waayahay saaxiibayaal, haddaba muuqaalkaas maxaa yahay? muuqaalkaas wuxuu yahay Nimcan Hilaac oo hees waaliye soo wada ama hees magaalada ugu soo joogay fanaanada reer Hargeysa ama arrimo maalmaha ba socday magaalada baraha bulshada hees la isweydaarsanaya aha ama harba xamaliga xigay sidoo kale ma banaadir ba aad u baahan karta iyo arrimo ay ka sameeyay ugu dambeeyay halkan aad ogsoonidin in magaalada la isku weydaarsanayay hees aan caadi ahayn. waayahay haddaba saaxiibayaal, fanaaniin badan baa dagaalka ku soo biiray, dagaalkii fanaadkii u dhaxeeyay magaalada koonfurta Soomaaliya iyo sidoo kale Jamhuuriyadda Somaliland. way faantay Soomaha dagaalkaas oo magaalada dhinacyo badan leh oo dhinaca Nimcan Hilaac kaga jiro oo dhinaca kale kaga jira Dayaxtal Nuurshe oo dhinaca kale kaga jira Ismaaciil Arka oo dhinaca kale kaga jira magaalada Khalid Kaamil oo dhinaca kale kaga jira kooxaha magaalada Hargeysa ka dhisan iyagoo sidoo kale magaalada sida kooxda in hore sheegnay kooxda uruska ah ee magaalada Dayaxbeel ayaduna dhinaca kaga jirto. kooxaha soo meedan baa magaalada sidoo kale dagaal faneed ayaa ka dhex qarxay bulshada Soomaaliyeed. haddaba fanaanka Nimcan Hilaac ayaa isaguna hees soo wada heestaas oo magaalada ugu jawaabayo fanaanada magaalada reer Hargeysa. heestaas oo magaalada baraha bulshada si aad iyo aad u qabsatay ama si aad iyo aad maanta loogu hadlayo. way faantay Soomaha ninkii nabaha u xishii caashaq xabashide ana xamar ku jecel sanadooda jeedana wada aragteen waxa soo qaaday fanaanka dhahda Nimcan Hilaac oo magaalada kamid ah fanaanada Soomaalida kooda loogu jecel yahay waxa uu ugu jawaabayaa fanaanada reer Hargeysa. saaxiibayaal soo ogsoonidin heesta markii dhawta laga qaaday 16 Juun ee madaxtooyada Jamhuuriyadda Somaliland heestaas oo hadalhayn badan lisay ayaa ugu soo jawaabay. dagaal loo kala haray maaha, waa dagaal dhinacyo badan taabto, dagaal faneed isu bedelay. sidoo kale abwaanin baa la weydiiyay oo kamid yahay abwaanka weyn ee magaalada kamid ah abwaaninta Soomaalida kooda kaliya haray ama kooda loogu jecel yahay geeyo Soomaalida. abwaankaas oo la garanaysan abwaan ee magaalada Jihiye waxa uu yiri magaalada gabayga ama heestani waxa la mid tahay gabaygiiha muslimnimo ka xigeen maxay ku dhaama gaal maxaasta ku koriyood magaalada dhaama ya way faantay Soomaha. haddaba heesaas soo macna soo wada dhageysto dagaal ka soo galay. sidoo kale dadka qaar baa qorayay in magaalada Nimcan Hilaac magaalada Muqdisho lagu waxyeelay laakiin wax la yeelay ma jiro inta ka horeeyo de waa fanaan Soomaaliyeed waxa wax lagu yeelay qofku inuu dareenkiisu cabiraya qofku inuu dareenkiisa cabira xaq buu leeyahay. way faantay Soomaha marka qofku inuu dareenkiisa cabirayno qofna lagu cabiriyo maaha. war anigu inaan dareenkayga cabirayno lagu cabiriyo maaha. dad badan waxa ka community ku rafanayo laha adigu magaalada qadadu baa tahay maxay kala tahay anu Somaliland baan reer Somaliland nin qarankiisa dalkiisa wajahal baan laakiin wixii naga iyo qarankeena waa dhibaatayna soo gudbinaya dhalinyarteena baraha bulshada ku jirtaan ka hortagto. sidoo kale fariin waxaan uga daray halkan dhalinyarada aalada kala duwan ee social media isticmaala siman gaalada aalada TikTok oo kulli aan rajinaya dhawaan iyadana kamid noqon doona dadku si toos ah ku soo biira inaad Somaliland aydo yeena Soomaaliya aydo inaad mid Soomaaliyeed aydo midna darajo lagu ma gaaro. boqolaal Soomaali ay jira maanta shaashada ka baxaan inuu 6 sano social media dhex fadhinayo anaga ma dhaco magaalada waxaan iska dhimaan wax ku kordha mooyaan. way faantay Soomaha marka inaad qabiil Soomaali ama qabiil ama dad tashadinaad ahayd guul kuma gaaraysid ku reer Somaliland saasana sheegaya ku reer Somaliland saasana sheegaya. si kastaba aato saaxiibayaal adiga se kula batay. way sidoo kale waxaan ka tagaynin oo iyada halkan uga taxsadinaya habarta qaali Najma Abdinaasir oo la yaabay ku geeriyooday dalka Mareykanka san xogta ku helay Ilaahay naxariis janna ka waraabina Ilaahay wayna raajicuun. Ilaahay naxariis janno ha ugu baaqo ama ha geeyo inagana hayno ka daba naxariisto iyadana waxa rajinayna inaad soo ducay dootaan. waa magaalada saawratay si gaar ah uga taxsadinaya waxa la yahay Ilaahay samriye baan naga wada siiyo awogay
magaranaysaa ilaahay naxariisana ka waraabi si kasta waad saaxiibeen muuqaalka si sheergareey meel si gaartay saidana muuqata idinka bye bye